السلام عليكم كسو دبادا جانل كينا اسلامك اب وحان idin wadaa afar application oo ay muhiim tahay in laga helo taleefankaaga Samsung-ka ama Android-ka. haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe dheh gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee soo gaara muuqaaladeena. haddii aad horey intaas u samaysay fadlan like-ta inoo reeb si ay noogu noqoto dhiirigelin. application-ku kuwaad waa Sound Assistant. application-ka wuxuu anfacayaa dadka dhibsada system sound-iga in ay gaabiyaan iyagoo isleh aad gaabisid barnaamijka aad isticmaalayso. si aad application-kan u isticmaasho waa inaad marka hore soo furataa application-kan. mid ogow, application-kan kuma shaqeeyo Android version-ka wixii ka hooseeyo 7.0. hagaa kaliya waxaa laga rabaa inaad taabato meesha ay ku qoran tahay floating button kadib aad dhahdo on. haddana waxaad kasii xulanaysaa afarta mid 3 second 5 second 15 second amaba inaad ka dhigato always visible, taasoo macnaheedu tahay haddii aan taabto meesha dheereyska amaba gaabiska in geed yaroo kuul ah oo geesaska igaga soo muuqan doono, kaasoo 3 second ama 5 second ama 15 second kadib aanan ka soo muuqan doonin ilaa laga reebo always visible. sidoo kale waxaadna furataa control media volume. application-ka labaad oo Smart Switch. application-kan ayaa kuu suurageliya inaad xogtaada dhan u wareejin karto taleefan kale adigoon isticmaalin laptop. tusaale waxaa heshay S8, kii hore wuxuu ahaa Infinix, xogtaada waxay ku jirtaa Infinix, marka waxaad rabtaa inaad ka wareejiso Infinix una wareejiso S8. marka soo furo application-kan. sidoo kale taleefanka kale waa inuu ku jiraa application-kan, marka waa inaad mid ka doorataa intaan USB cable, wireless, external storage. aniga hadda waxaan dooranayaa wireless, ma haysto kuwa kale. kadib dooro send adigoo isticmaalayo taleefanka aad wax ka dirayso. kadib dooro intaad jeceshahay inaad u dirto, hadday ahaato documents, application, contact, message, music ama dooro kurti. ugu dambeyntii dheh send. application-ka saddexaad waa SideSync. application-ka waxaa loo isticmaalaa in shaashada taleefanka laga maamulo kombiyuutarka ama laptop-ka. intaas waxaa usii dheer in aad wax ka shuban karto kombiyuutarka kana shubi karto taleefanka USB la'aan adigoo isticmaalayo wireless. marka si aad u isticmaasho waxaad soo furanaysaa application-kan. sidoo kale waa inuu ku jiraa kombiyuutarka application-kan. waxaadna ka helaysaan dhammaan application-ada muuqaalka hoostiisa. markaad soo furato isla markiiba waxaa kuusoo qabanayo mobilka ama laptop-ka. marka aad mid taabato way isku xirmayaan. shaashada taleefanka ayaad waxaad ka dhex arkaysaa kombiyuutarka iyo box yar. application-ka afraad waa Samsung Music. wax sharxaad uma baahno, waa application music lagu dhageysto. application-kan waxaan muuqaalkan ugu soo qaatay ayaa waxay tahay taleefanka Samsung-ka ma lahan music application oo taleefanka la socdo. application-kan waa muhiim. inta ugu muhiimsan ayaa ah sleep time. waxaad saaranaysaa waqti, markii la gaaro waqtigaas wuu joojinayaa music-ka. sidoo kale waxaad ka maamuli kartaa marka uu taleefanka xiran yahay. asxaabta insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan ka dhigo muuqaalka xiga macluumaad ku saabsan taleefanka OnePlus 6.